Koorsadani waa computerized accounting kaasoo loogu talagalay ururinta xogaha dhaqaale iyo kala habeynta xogahaas iyadoo markaasna turjumaad sax ah lagu sameynayo xogahaas dhaqaale ee shirkadu ay leedahay. Waxyaalahan kale aan ku soo qeexna waxaa ka mid ah waa hab computerized accounting ah oo ujeedadiisu tahay dhammaan xogaha dhaqaale ee ganacsiga in loo diiwaan geliyo hab kooban oo xogaha wixii isla heba isku meel lagu qoro si loo diyaariyo warbixin dhaqaale oo dhammaystiran. Waxaan ka soo hadalnay components uu ka kooban yahay elementska sida people-ka, producerska, data collection-ka iyo waxyaalaha la mid ah. waxaan rabaa insha Allah inaan maanta sharaxo cashirkii ugu horreeyay hadduu Alla idmo. Marka intaan jabtarka gelin maxaa lagaaga baahan yahay inaad aqoon u leedahay the primary information flow with the business environment-ga, inaad fahamsan tahay difference-ga u dhexeeya accounting information system iyo management information system, inaad fahamsan tahay difference-ga between u dhexeeya financial transaction iyo non-financial transaction, inaad fahamsan tahay principalka feederska astaamaha oo general model of information system uu ku shaqeeyo jabtarka inta ku jirna hadduu Alla idmo, inaad fahamsan tahay organizational structure-ka qaabka uu shaqeeyo organization-ku iyo waxyaalaha la xiriira oo function-kiisa asset business-ka. sidoo kale inaad kala saari kartid between the external audit and internal audit and advisor of service are related to the account information system. waxyaalaha la xiriira external auditor kanti dhowraha guud ee shirkadda, midka gudaha iyo midka banaanka, advisorska la taliyaha iyo serviceka uu qabto iyo waxyaalaha la xiriira inta badan account information system. inta aan insha Allah jabtarka ku jirno meelo badan baanu ka eegi doonaa hadduu Alla idmo. waxa uu noo soo qaatay halkan pie chart wax la yiraahdo internal and external information flow. internal waa wixii gudaha ah, externalna wixii banaanka ah oo flow ah. halkan waa ujeedaan baan u maleynayaa halkan uu ka soo galaya top management-gi waa ka middle management-gi, operation management-gi iyo operation personnel oo day to day operation information ka dhacaya. halkan waa stakeholders-ki waa dadkii lahaa shirkadda, halkan waa suppliers-ki dadkii performance of information, inta badan halkanna waa customer-ki. halkan uu ka imaanayaa xogihii, halkan ay galayaan, halkan ay ka soo galayaan, halkanna waa ay ka baxayaan. waa pie chart ku tusaya xogaha dhaqaale iyo information-ka qaabku uga baxo iyo qaabku u soo gala intaba. waxaan rabaa insha Allah inaan internal information flow waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, horizontal iyo vertical. horizontal waa flow of information used primarily and operation level to capture transaction and provision data. waa in xogtii ay lahayd shirkadu inta badan dee waxa weeyaan transaction waxa la yiraahdaa macmiilka, xogaha dhaqaale ee macmiilka si loo kaydiyo oo loo qabto dabadeedna operation data loo xareeyo. verticalkuna wuxuu sheegay flow information down the flow of the transaction, quotaska, budgetka, waxyaalaha guud ee shirkadu waxa weeyaan maamulka qolooyinka top management waa information of activity waxa ka mid ah in goal orientation information system support uu saddexdaada midkood caawiyo inuu caawiyo standard function of the management-ga maamulka, sidoo kale inuu caawiyo decision-ka ay gaari karaan iyo go'aanka ay qaadi karaan maamulka, sidoo kale inuu caawiyo the support of day to day operation shaqada maalinlaha ee shirkadda ka socota inuu ku caawin karo maadadan course-kan oo computerized accounting ah. haddaba what's the information system? information system maxaa waa? information system waa is a set of formal producers, waa qayb ka mid ah formal producer by which kaasoo data are collected, datadii la qabanayo. for example kala transaction baa dhacay, xog macmiil, waxbaa la iibsaday, waxbaa la kala gatay, waxbaa la isu keenay, waxbaa la kala qaatay, macmiil baa waxaasoo dhan capture baa la yiraahdaa and processing dabadeedna waxaa loo bedelayaa into information distributed by the users la xiriira dhanka kale si loo helo warbixin dhaqaale oo dhammaystiran. transaction
Soomaali ahaan waa ganacsiga macmiilka ama macmiil ganacsi. What is the event? waa dhacdo kaasoo the effect of la xiriira or this of interest to organization and the processing by the its information system. waxa weeyaan waa dhacdo taasoo saameyn ku leh organizationka si loogu bedelo xog dhammaystiran the unit of the work si loogu shaqeeyo. Transaction kala loo qaybiyo financial transaction iyo non financial transaction. Financial transaction waa economic events ka dhaqaalaha waxa weeye saameyn eventiga dhacay effect kaasoo asset ka saameynaya iyo equities ka iyo organization ko dhan iyo waxa kamid ah bargains ka airline ticket ka waxyaalahaas oo dhan baa kamid ah.